السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلو ninka idin muuqdo magaciisi waa Christian Stocker waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Oostenrijk. Christian Stocker maalin dhaweyd wuxuu la kulmay bulshada magaalada Salzburg oo su'aalo ay ku weydiinayeen. Su'aalaha la weydiiyay waxaa ka mid ahayd su'aal qusaysa kursiinta ilmaha. Hooyo waxay tiri annaga haddaan ay hooyooyinka ilmaha koriya waxaan waqti gelinaa ilmaheena isbuucii 96 saacadood lacagna laguma siiyo. Okay, zondag suushilagna ma helno, wochenende ma jiro. Okay, urlob oo lacag lagu bixinayo ma lahan calashan urlob isgaladin ma jirto. Saaxiibkaygu wuxuu taagan yahay ilmo kursiinta uma arka aniga inay tahay shaqo lacag aan isku siinayn. oo maba u arkiba shaqo inay tahay ilmo kursiinta shaqo ma ahan. Ilmo kursiinta wuxuu taagan yahay mas'uuliyad qoyska ay leeyihiin calashan ilmaha in la korsado waa mas'uuliyad. marka ma ahan shaqo ahaan in loo qaato in xisaabta lagu darsado in dhaqaale lagu sameeyo ma ahan. Okay, ma ahan wax oo business case ah. saaxiibkayga hadalkiisa wuu qaldanaa. akhiiran videogii wuxuu soo galay social mediaha bulshadii reer Oostenrijk dhana ku kacday. maalin dhaweyd wuxuu ka bixiyay raaligelin oo wuxuu taagan yahay waa qaldanaa alashan ilmo kursiinta waa shaqo culus ay hooyooyinka inoo hayaan. Okay, waa shaqo loo baahan yahay. markaas tusaale wuxuu soo qaatay sida asiga ilmihiis uu ku koriyay aslan laba ilmo leeyahay sida la sheegay sida ilmihiis ay ku koriyeen asiga iyo xaaskiisii culeyska iyo rafaadka ka jiro. marka haleegara la amal hadalkayga haduu ku duray ama si qaldan u fahantay marka ama caay haduu kula muuqday iska raalaha amal ma fahanday marka adiga say kula tahay commentiga nala wadaag aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.